haddii aad hadafkaaga la wadaagto ama uga waranto dad kale si fiican uma saari doontid diiradda waxaa lumaya hamiga iyo higsiga aad u hayso ka miro dhalinta iyo kan gugaaridda hadafkaaga. waxaa jira cudur naadir ah oo ku dhaca maskaxda kaasoo qofku u malaynayo inuu qurmayo, dhimanayo ama aanu jirinba. waa macquul in loo dhinto qalbi jab, waxaana loogu yeeraa stress cardiomyopathy. 90% dadku ma laha qalbi nadiif ah, laakiin waxay u dhaqmaan sida ahludiinka. haddii uu qofku gebi ahaan joojiyo dhaqdhaqaaqa muddo 15 daqiiqo ah, waa uu gam'ayaa. 90% ka mid ah dadka ayaa xiiseeya marka ay laba qof dagaalamayso. qofku inuu naftiisa weydiiyo waxa uu rabo inuu qabto kadibna uu fuliyaa waxay u baahan tahay kalsooni badan. qofka ay hooseyso kalsoonidiisu waxa uu eegtaa dadka kale si uu u go'aansado waxa uu qaban lahaa. dadka bixiya talooyinka ugu fiicani badanaa waxay la nool yihiin ama haysta dhibaatooyinka ugu badan. dadka daciifka ahi si fudud waxuma cafiyaan, waxayna jecel yihiin inay argutaan. culimada cilmi nafsigu waxay leeyihiin muddo 4 daqiiqo ah ayaa wax lagu jeclaadaa. marka uu ruuxu farxad la ooynayo waxay ilintu ka soo hor dareertaa isha midig, kolka uu murugo la ooyana waxay ka soo hor burqataa isha bidix. celcelis ahaan muddada dumarku ay qarin karaan sir waa 47 saac iyo 15 daqiiqo. ka hor inta aanad gam'in qofka u dambeeya ee ku soo dhaca maankaaga waxa uu sabab u noqday farxaddaada ama murugadaada. dadka da'dooda u dhaxayso 18 ilaa 33 jir ayaa u warwar badan inta ifka joogta. 10% mujtamaca ku dhaqan dunidu waa ay guran yihiin. maskaxdaadu waa ay dareemi kartaa qofka kugu dhaygaga xitaa haddii aad huruddo. badanaa qofka ka faallooda uun dadka kale waa mid aan noloshiisa ku faraxsanayn. ruux haddii uu culays ama dhib kugu qabo waxa uu kugula dagaalayaa waxyaabo yaryar oo aan micno lahayn. qofka aan ku jeclayni kuma mahadnaqayo, qiimana uma laha inta uu la egyahay waxa aad u qabatay. indheergaradku waxa uu qof kasta ku cabbiraa ficilkiisa oo uu samaynayo, halka maangaabkun uu ku xukumo siday u hadlaan. qofka ku dhashay indhala'aan wuxuu ku riyoodaa codad oo keliya. la socoshada dadka aragtida togan oo faraxsani waxay kugu sii kordhinayaan farxad. 90% dhibaatooyinka waxaa abuura maskaxda. jacaylku waxa uu dardargelin karaa ama gudlin karaa hibadaada. ehlu caqligu ma buunbuuniyo naftiisa, juhaladuna waxay ismoodaan indheergarato. marka aad tahay doob waxaad aragtaa waa lamaane faraxsan, marka aanad ahaynse waxaad arkaysaa doobo faraxsan. indhaha ood isku qabataa waxay kaa caawinayaan inaad wax xasuusato. marka aad xirato dhar madow waxaad u muuqanaysaa qof dhuuban. cilmu nafsigu waxa uu ku taliyey haddii aad rabto inaad qof ka doorato koox dad ah oo xun, ka dooro kan ugu xun.